السلام عليكم أرضي سودوادا رمضان مبارك ومع محمود درسيgan waa darsigan 16aad wuxuu kamid yahay casharadii taxana ahaa ee ku saabsan luuqada Ingiriiska ayaynu ka qaadan jirnay platformyada uu leeyahay Cilmi Academy maanta waxaynu baranaynaa 8 eray ee meesha noo saaran waa erayo ardayda ay dib ku qabaan ku yar adag aadna loo isticmaalo but before we start the lesson intaan casharku bilaabin waxaan jeclaan lahaa inaan announcement sameeyo announcementigaas waxa waay in Maarso bishan hadda maanta kowda ah iyo Ramadaankan inaynu bixin doono casharo crash programs ah oo ku qaadan doono qaab online ah casharadaas waxay isugu jiraan kuwa bilow ah dhexdhexaad ilaa iyo maaragtay advanced intermediate beginner and advanced classes haddii aad xiiseynaysid please numberka WhatsAppka ee meesha saaran inaga soo qabo inaga soo biir and we'll be happy for you to join us erey koowaad cashar ku sii galo erey koowaad waa fundraiser waxaa laga wadaa lacag aroorin sale bulsho meel degan ayaa waxay rabaan inay dhistaan masaajid ama waxay rabaan inay dhistaan school ama waxay rabaan inay qotaan ceel ay bulshada ka wada cabto iyagaan isku tashanay marka dadweynaha bulshada inta meel isugu yeero la dhaho ceel baynu qodan rabnaa ama sale school baynu dhisi rabnaa ee lacagaas ka aroorino ayaa waxa la yiraahdaa qaabkaas ayaa waxa la yiraahdaa fundraiser sale hadaan jumlad geliyo waxay noqonaysaa the school is organizing a fundraiser to support local charities. The schoolka is organizing a fundraiser to support local charities. Schoolku wuxuu maaragtay hagaajinaya fundraiser si uu caawiyo local charities ama sadaqooyinka deegaanka ama localka. Midda labaad waa renovating waa dayactir. Tusaale gurigaan aniga leeyahay haddii aan rabo inaan maaragtay saqafka kore ka bedelo ama albaabka ka bedelo ama rinji aan mariyo waan dayactirayaa what I'm doing is renovation haddii aan jumlad geliyo waxa waaye they are renovating their house to make it modern waxay dayactirayaan ama isbedelo ku sameynayaan gurigooda their house to make it modern si uga dhigaan mid casri ah ereyga saddexaad waa consensus basically waa agreement waa taqaaniin waa heshiis Shaladi and jumlad gelino waxay noqonaysaa after a long discussion the team reached a consensus on the new project after a long discussion wada hadal dheer kadib the team kooxda reached a consensus on the new project waxay agreement ku galeen projectiga cusub a piece of cake waa jab yar oo doorsho ah ereyga afraad piece waa jab cake waa doorsho waa taqaaniin a piece of cake marka waxay noqonaysaa jab yar oo doorsho saladan jumlad geliyo Salim saxan ayaan hor qaatay aad buu u fududaa jab yar oo iska maaragtay doorsho camal ayuu ahaa the test or the exam was so easy it was a piece of cake imtixaanka aad ayuu u fududaa jab yar wuxuu iska ahaa doorsho sort through waxa waayo ina alaabta ku taalay ama waxa ku yaalo inaad kala baangeysid tusaale dhar baa suuqa jiro qaarna waa duug oo inaad sadaqaysid baa iska rabtaa ama maaragtay wax ku bedelatid alaabaha qaarna waa cusub yihiin ina xiratid oo maaragtay boorsadii baa waclis ama tusaale buugaag baa ku kala taalo qaarna waxa rabtaa inaad iska tuurtid oo dib waa kuwa duuga ama waa kuwa maaragtay waqtigooda agtaada ku dhamaaday kuna waa kuwa aad u baahan tahay marka what you are doing you are sorting through waa kala baangeynaysa saladan jumlad ku geliyo waxa dhaysaa I need to sort through all these old clothes and donate what I don't wear anymore I need to sort through all these old clothes waxaan u baahanahay inaan kala baangeeyo dharyoogan duuga ama igu daahay and donate what I don't wear anymore qaarkii aanan xiranina aan iska sadaqaysto ereyga lixaad waa outdated was something that's not modern wax maaragtay old fashion ah modern aanan ahayn wax maaragtay duug ah ama wax laga tagay ah telefonkiisa wuxuu ahaa mid outdated ah abyaasha qaarna ma qaadaynin haddaynu jumlad gelin waxay dhahayna his phone is outdated and does not support the latest apps. His phone, telefonkiisa, is outdated waa mid duug ah. Maybe wuxuu watay Nokia hore laga tagay, Nokia X2 ama Express Music midkii la jiray ayuu watay waana outdated and doesn't support the latest apps. Mana qaadayo ama ma aqbalayo applicationadii ugu dambeeyay. Ereyga toddobaad waa handicapped si xushmad leh ama luuqad xushmad leh hadii aynu ku sheegno waxaan dhahaynaa waa dadyooga tusaale aragala dadyooga lagu hala dadyooga gacmaha hala yaani waa dadyooga maaragtay wax ka haleysayeen ama curyaankiska hadii luqad maaragtay engegan lagu sheego waa curyaan handicapped diyan jumlad galino the building is accessible for the handicapped with ramps and elevators the building
tusaale maalmahan dabaqyada dadka maaragtay curyaamada ama gaariga ku socdo aad bay maaragtay u caawiyaan. tusaale elevator hadduu leeyahay, elevator waa wish ama waxaa loo sameeyay ramps iyo slopes iyo maaragtay jaraanjarooyinka ay ku soconayeen. marka the building is accessible for the handicapped with ramps and elevators. ereyga sideedaad ee ugu dambeeya waa brainstorming. erey kale waxaa jira aad iskugu qaldo la brain draining haddii aan u imaado brainstorm oo imaanina. brain draining waa for example wadamada hadda Africa waxaa inta badan ka jira in reer Yurub inta yimaadaan dad yoga caqliga badan ay ka wataan ama dad ardayda tafka. tusaale ardayda hadda Soomaaliya muqdisho imtixaan ku qaadatay, arday waxaa jirta ilaa 10 ama 20 ah oo calaamada A keenay, oo arday very tough ah ilaa maskax siiyay. reer Yurub ama Mareykan wuxuu sameynayaa ardaydaas ayuu xusinaya scholarships. in the name of scholarships waa labada wadankaas la geenaa engineero iyo waxa laga dhigaa mugta iyaga manaafacaadsanaya. waa brain draining. ama ba arday bisma ahaan dad yoga maskaxda leh oo engineerada ah wax curiyay waxa laga wataa wadamadooda waxa la yiraahdaa brain drain. ereygan bay aad isku qaldaan dadka. midkan waa brainstorming. waa tusaale inaan maskaxda ka shaqaysiino ideas iyo fikrado cusubna aan la yimaano. tusaale haddaan jumlad ku geliyo, we spent the afternoon brainstorming ideas for the new marketing campaign. galabkii dhammaan waxaynu sameynaynaa wax brainstorming laha for the new marketing campaign. yani marketing campaign ka noo soo socda baan waxa u sameynaynaa brainstorming. marka hal mar oo aqrinaya si aad maaragtay dhawaaqooda u baratid waa fundraiser, renovating, consensus, a piece of cake, sort through, outdated, handicapped, brainstorming. cashirkan inta ayuu ku egahay. Thank you so much. Thank you for listening. God bless you and have a good day.